بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسر هذا channel كيغا حبيب عبد الرحمن فضلا هديات كعصبت هاي سبسكرايب تسارو جنبليل كنفرو سي برامجتو هاد بايكوسو قاران إخواني في الله سؤال فربضا ayaa waxa la iga soo weydiiyaa waqtiyada qofku uu quraanka akhrisanayo ama uu rabo qofku in uu iska cilaajiyo shayaadiintan iyo suxaradan iyo masaljaankan dhibay qofku marka uu doonayo inuu ka takhaluso su'aalo fara badan ayaa iga yimaad sheekh suuradee ku dadaala inaan akhristo ama aan biyo ku tufto ama aan isku akhriyo suuradda igula talin lahay runtii su'aashaas waxaan uga jawaabayaa horta haddaynu Soomaali nahay ahlul qur'aan baynu nahay innaka sideeda banaanba mahmaahda caalamka ama rekorka inoo yaala waa kalaamullah dadkeenu waxay ku sifaysan yihiin ahlul qur'aan in badan waxaad maqli jirteen ilmaha aynu yaasiinka saarno war qofkaasi waa xanuunsan yahay yaasiinka aynu ku akhrino in badan dhagahayga waa maqli jireen qof gurigaas yaasiinka aynu ku akhrino suuratu yaasiin waa min aqwa suwar oo bibasaada ka takhalusi karaya masaljaan kasta jinni kasta sixir kasta khaadim kasta oo isqariyay bibasata jawaabtu way fududahay suuratu yaasiin maadaama aad dhagaysan karaysid ama aad isku akhrin karaysid jasadkaaga in yar oo shayaadiina in yar oo suxara ah il xasad ومصبيان وحجسد كا ku hari karaya ma jiro way ku gubanayaan laba arimood ba lagaaga baahan yahay inaad yaqiin adiga oo ilaahay aaminsan at-tawakkul iyo sidoo kale istimraar inaad ku celcelisid intaas ba lagaaga baahan yahay sheekh ma akhrin karayo aniga quraanka ma baran ma akhrisan dhageyso ku celcesho insha Allah ta'ala way gubanayaan waxa jasadkaaga ku jira حتى قف كستولا أنا شياطين مقبو جمن مقبو سفي عن أدغيسو سورة ياسين ومن أقوى سحر لأن آيات كذا ألفاظ كذا حكايات كذا تفسير كذا لما وحو كوب صدي وحي أي ضروين كأولن لقو قبي أي سورة تاسي كوب صدي الله أكبر إخواني في الله إخواني الله يحفظكم سورة ضيان لإلاون إخواني سورة دا قريهنا كشتا وأنا غير الصومالي هدينا أهل القرآن بيننا هاي قريه وحن مقرأ شر سورة ياسين لكن فعلا كم دقنتان فعلا أفكار بكتير هذا لكن كم دقنتان حداد كل رقم لهايدين سورة داسي وإذن كغفلنا لحي وين إذن كجوب لحي إن شاء الله تعالى لكن يقين تبع مقن سدوك للتوكل كبا مقن كد ذلك إن شاء الله بإذن الله المولى لكن وحاصل محاكو هرية مركو هرقف مستقيما نقو عبادة إلهي كد ذلك صلاة كد ذلك نروش هذا حياته سيدة داركت لها نقطة إن شاء الله بإذن الله وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد